shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya xarunteeda degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa deeq ugu talagashay gaarsiisay isbitaalka guud ee Khaliil ee degmada Beled Xaawo waxaana deeqdan ay ku soo beegmaysaa xilli dhaqaatiirta isbitaalka ay ka dayrinayaan xaaladaha guud ee isbitaalka waxaana deeqdan Hormuud ay ugu talagashay isbitaalka guud gaarsiiyay kusimaha maamulaha shirkadda Hormuud Cabdirasaaq Cabdullaahi Bulxan iyo madaxa suuqgeynta Xasan Axmed Nuur maanta oo taariikhdu ay tahay 26 bisha 12aad 2019 annagoo ka soconno xafiiska Hormuud ee degmada Beled Xaawo kusimaha maamulaha shirkadda Cabdirasaaq Cabdullaahi Bulxan iyo anigoo madaxa marketinka Beled Xaawo Xasan Axmed Nuur aadan kadib markuu noo yimid codsi ka yimid dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka oo naloogu sheegayay in joodariyadii hore oo Hormuud ay bixisay ay dhammaadeen haddana bukaankii joodariyo lagala imaado bannaanka ku jiifo kuwaasoo khatar keeni karta markii la celiyo waxaan go'aansannay inaan ku deeqno 50 joodari oo kale oo cusub ayagii baan maanta wadnaa waxaan ku wareejinaynaa dhakhtarka iyo matronka isbitaalka ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay noqdaan kuwo anfaco ama gaaro dadka loogu talagalay waana filaynaa waxaa kale oo aan baaq u diraynaa dadka iyo shirkadaha kale inay ka qayb qaataan isbitaalkan oo baahidiisu aad u badan tahay inay ka qayb qaataan waxtarkiisa annagu joodariyadii horena waa keenay iyo gelinta isbitaalkan la sameeyay oo laga soo jiiday bartanka magaalada oo la keenay Hormuud Foundation baa sameysay waana garab taaganna wixii hadda ka dambeeya insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa dhaqaatiirta inay naga gudoomaan aad bay maasiin walaalaheena shirkadda Hormuud oo runtii muujisay ilqaan aad iyo aad u weyn mar horena sameysay ilqaankaas oo kaleeto sida uu sheegay maamulaha iyo gelinta isbitaalka noo sameeyay waad ogtihiin isbitaal hadduusan biyo lahayn nadaafad ma laha hadduusan isbitaalka nadiif ahayn haddee in daawo laga qaato iska dhaaf asigii baa cudur laga qaadayaa taa waxay shahashay marka in bukaanadii biyaha cabbi lahaayeen iyo nadaafadda isbitaalka lagu hagaajiyo biyihii Hormuud noo keentay haddana maanta waxaan u taaganahay oo aan kala wareegaynaa joodariyo gaaraya ilaa 50 joodari oo ayna soo gaarsiiyeen kadib markii aan u caawinay oo u sheegnay baahida isbitaalka ka jirto inuu cudur dilaacay cudurro fara badan dilaaceen dadka isbitaalka isugu yimaadeen loo waayay meel la seexiyo iyo meel dadkii Google loo dhigay la waayay ayaa waxaan ka codsanay inay nala soo gaaraan wadaan oo joodariyaal alxamdulillah maanta waa nala soo gaareen joodariyaashii gacantaan ku haynaa waxaan rabaa markii inaan arrintan ka faa'iidaysano u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel walba ay joogaan in isbitaalkan cidda gacanta ku haysa ay tahay hay'ado dibadda ka yimaaday kuwaasoo nala dal ahayn nala diin ahayn nala diir ahayn nala deegaan ahayn qofka u soo dhiibiyaan qof ay garanayaan maahan qof ay la diin yihiin maahan qof ay la dal yihiin waxay ka danqadeen kaliya inay tahay qof bini aadan oo baahan sidii baahidiisa wax loogu qaban lahaa annagoo marka islaama walaalaha ehla mataqaan dadkayga ay yihiin isku diinaan nahay waxaad moodaa in marka shirkadaha kaleeto iyo dadka tijaarta ganacsatada gacanta ku hayso inay arrimahaas aysan aad ugu baraarugsanin waxaa marka inay ku baraarugaan cid kasta oo ka qayb qaadan karto in mataqaanaa la gaarsiiyo goobaha u baahan sida isbitaalka oo kaleeto waxay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan aad iyo aad baa mahadsantahay ku soo dhaweynayaa agaasimaha isbitaalka magacaygu waa Sahra Cumar Cigaal sidii hore loo soo sheegay maaragtay qoladii maamulintii Hormuud iyo dhaqtarku maaragtay oo ku xigayba ay cadeeyeen waa wixii macnaha meeshan ka jiray oo falcelin laga sameeyay falcelinta sidii aan u filaynay inay Hormuud ciladaha ama caqabadaha isbitaalka la soo gudboonaada markaan u soo gudbinay ay jawaab celin aan uga heli jirnay ayaa hadda waxa muuqata inay jawaab celintii aan markaan koowaad ahayn inay inoo keeneen joodariyadii hadda aan u baahnayn oo isbitaalka baahidiisa ay ahayd intaa ka bacdi waa wax maaragtay aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu mahadiyo oo dadkii maaragtay ka qayb qaadan lahaa bulshadan sidii wax loogu qaban lahaa markii loo bandhigo inay isku dayayaan inay wax ka soo falceliyaan ama ay ka jawaab celiyaan alxamdulillah baa Ilaahay waa ugu mahadinaynaa marka kale waxa weeyaan baahiyada isbitaalkan saad ogtihiin
waa isbitaal lacag la'aan ama maxaa la dhahaa boqolkiiba boqol saafeyska ama shaqada ka socota ee lacag la'aan tahay mana laga helo saad ogtihiin Soomaaliya gudaheeda adduunka iskaba dhaafa Soomaaliya gudaheeda hadda noocan oo kale marka alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale dadkii soo dhiibay boqolkiiba 70 ayay waxay soo dabooleen baahida isbitaalka ka jirtay laakiin boqolkiiba 30 wali bulshada looga baahan yahay waa waxyaabaha deertada muuqda oo qoladan hadda ay ka soo jawaab celisay hormuud wayna ku mahadsan yihiin bulshada inteeda kale iyo xitaa hormuud iyo hay'adaha kale oo daneenaayo oo maaragtay shirkadaha kale oo ganacsiga waxaan u sheegaynaa baahida inay ka tahay waxa haddana hortaagan oo macnaha anaga caqabad kale ah oo rabaa oo codsigaygan iyo fursadeyda naga faa'iideysanaya ambulance in loo keeno ambulance oo ah dadka hooyada degdeg u foolata ama dhiig baxayso saasoo kaleeto ama maxaa la dhahay bukaankii wax degdeg ku soo booda xanuun baabuurkii degdeg u keeni lahaa oo gurmadka ahaa ma haysana degma ahaan mar baa uu soo gaaray mana aanan calfanin oo ma ay suuragelin inuu sii shaqeeyo marka waan jeclaan lahayn shirkad kasta oo ganacsi magaceeda intay ku soo qorto ambulance inay noo keento nooc walba ha noqdee oo hooyadii markaas habeen barkii la qabto oo dhiig bax ku soo boodo magaalada ay si fudud ay maaragtay insha Allah lagu keeni karo isbitaalka maadaama isbitaalku uu yahay isbitaal 24 saac shaqeeya dhaqaatiirtuna ay heegan yihiin oo ilaahay mahadiis ay tahay dhaqaatiir deegaanka inay shaqeynayaan oo meesha degan isla markaas habeen iyo maalin ay heegan yihiin ambulance marka laba waxyaabood waa uga faa'iideysanayna haddii aan helno oo bulshada waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay isku taxaluujiso sidii aan maaragtay loogu heli lahaa marka koowaad in bukaankii dhibanaana loogu soo qaado marka labaad dhakhtarkii shaqada degdega qaban lahaa inay noo soo qaado taasoo wax loo baahan yahay baahi aad u weyn aan u qabno bulshada Bulaxaawan ay u baahan tahay insha Allah bilkariim waxaan rajaynaynaa in maaragtay codsiga kan hadda uu noo imaaday kan kale noogu xiga kaas oo ay kuwa kale iska sii jiraan marka biidnillah kariim in maaragtay dadka ay noqoto wax ay ku maaragtay baraarugaan boqolkiiba 30 ama 50 ba aan dhaho hadday tiri waan keenay hay'adii 50 boqolkiiba ama 70 wixii kale inaan anaga bulsho ahaan la imaano oo kor isu qaadno saad ogtihiin bulsho kasta ayada is hormarisa ayada dadkeedu ku qabta ayada u naxda haddii laakiin qof walba uu yiraahdo aniga gurigeyga caafimaad aan ku qabaa dhaqaalaan haystaa isbitaalkaan rabaan tegi karaa gaari baa guriga ugu xaraysan way ka weyn tahay dhibaatada halkan 15 kilomitir 20 kilomitir 30 kilomitir ilaa wuxuu ka bargaraa isbitaalkan referland dhihi karaa meelo badan saa ogtihiin marka halkaasay bukaanka ka imaan qaarkood lug bay ku imaanayaan halkan waxaa ka muuqata kareeta lagu keenaya wax la dhaha marka ambulance waxay inoo fududeyn lahayd dadkaas inay soo gaaraan waxaan xasuustaa si fiican aan u xasuustaa hooyo hadda ka hor dhiig baxaysay oo la soo qaado kareeta la soo saar dhex bay ku dhimatay aniga waxaan xasuustaa meedkeedii aan loo keenay bal inay noo shaafiiriyo mar horeena nafta ka baxday marka waxaan rabaa dhibaatooyinkaas maaragtay insha Allah tacaala bulshadanada haysta anaga wayna haystaan ma aha in anaga kaliya naftanada ay tahay mid anaga aan waxaan rabnay haysanay oo ku faraxsanahay ma aha anaga waxaan haysanaa xataa waxay bulshadana haysata ayaan ka sii jecelnahay insha Allah bilkariim marka ina waxa anaga haysano ee bulshada waxay haysata anaga haysana in bulshada dib haduu haystana wuuna haystaa waxaan rabaa marka in insha Allah tacaala laga qayb qaato cid walba oo daneynayso